عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا wanaagsan daawadayaasha qiimaha qadarintiga mudan meel kastoo dunida ka joogta waa mar kale 10 kale cusub oo ku saabsan dhanka tiknoolajiyada daawadayaal iyo barnaamijyada la xiriiraya dhanka social media hadaba daawadayaal muuqaalkan waxaan idinku talagalay sida loo sameeyo amaba looga dhigto laba account inaad ku isticmaasho hal WhatsApp oo kaliya marka hal app oo kaliya misalan WhatsApp kan oo kaliya isticmaalaya marka WhatsApp kan ma rabaa inaan WhatsApp kala ka samaysto oo aan ka dhigto laba WhatsApp aan ka dhigto kadibna number kale aan hadho aan ku isticmaalo sidee baan ugu isticmaali karaa ama Facebook laftiisa ayaa Facebook labaad oo kale account kale aan ka furan karaa oo isticmaali karaa sidee baan u sameysanayaa ama waxa loo yaqaano dual app waxa loo yaqaano ayaa jira marka dual app kan misalan WhatsApp oo kale oo ku sameyn kartaa apps-ka kale kugu jira mobilkaaga oo ku sameysan kartaa messenger-ka laftiisa ama qaybtan waxa way Facebook uu leeyahay yani lagu wada sheekaysto ama dadka aad kula hadasho messenger-ka loo yaqaano waad kaga samaysan kartaa oo mid loo baad samaysan kartaa hadii kugu jiro aniga imkaygu jiro oo inta badan kuma hadlo asxaabtana inta badan WhatsApp kuma kala xiriira dadka marka Facebook oo kale laftiisa waad samayn kartaa oo mid labaad baad ka samaysan kartaa adoo apps-ka kugu jira inta badan lagu wada hadlo ama social media inta badan lagu wada isticmaalo waad ka dhigan kartaa labaad ka dhigan kartaa mid labaad ka samaysan kartaa marka sidee baan u samaysan karaa laba qaab baad samaysan kartaa aad u fudud runtii qaabkooda waxa weeye inaad setting-ka tagto mobilkaaga aad tagto kadibna aad ku qorto halkaas search ku qoran tahay aad ku qorto waxa la yiraahdo dual messenger aad ku qorto inta mar aad ku qorto aad search tiraahdo way halka markaan ku soo dhigo dual messenger baad ku dhufan doontaa dual messenger baad ku dhufato halka markaa ku soo dhigaya apps-kii aad mobilkaaga ku isticmaasho marka aniga marka labadana kaliya igu jira WhatsApp iyo Facebook kaliya igu jira wax ka ma isticmaalo marka xaga sare bay kugu cad wax wuxuu ku yiri use to separate accounts for the same app marka imika soo WhatsApp ko kala raba ayaan ka samaysto dual app aan ka samaysto oo dual app sameeyo marka halkan aan ku dhufan doona calaamada enable-ka ayaan ku dhufan doona kadibna install ayaan ka sii dooran doona install maraan ku dhufto imika waxa weeye uu install gareynaya midkii labaad buu sameynaya marka kaliya xagga waa bartan buu inoo soo dhigaya waxa inoo soo dhigay soo markisid WhatsApp-kii labaad marka isagu wuxuu kaga duwaya WhatsApp-ka labaad calaamada yar soo markisan calaamada yar moodo silsilada kale ama labadaas wareeg istul saaran iyo kaga duwaya xagga hoosana casaanka calaamada yar ku raacnay marka waad ku dhufan doontaa marka saa ku dhufato uu ku furmi doonaa uu ku soo furmo marka waxaad ku dhufan doontaa agree and continue ayaad ku dhufan doontaa marka halkan waxaad gelin doontaa lambarka aad doonayso inaad ku isticmaasho ayuu bad gelin markaas marka wixii lambarkii aad doonayso mad gelin kadibna naga soo saaran doontaa sidii aad u buuxin jirtay WhatsApp-ka caadiga ayuu bad buuxin doontaa qaabka labaad ee kale loo soo saari kartaa waxa weeye setting-kaaga tagi doontaa kadibna waxaad ka dooran doontaa meesha ku qoran tahay advanced features markaad ku dhufato waxaad hoos baad u yar dhaadhici waxaad ka dooran doontaa meesha ku qoran tahay dual messenger markaad ku dhufato halkan buu ku soo dhigi doonaa marka apps-kii kadibna sidii imkaanu sameeyno kale ayuu baad sameyn doontaa kadibna baad ku dhufan doontaa install baad sii dooran doontaa kadibna isaga waxaan ku soo dejinaya kadibna aad toos geli doontaa aad baad maasantiin taas aan ku soo koobi doonaa muuqaalkeenan aad baan idinka mahadcelinayaa asxaabta qaaliga ka qayb qaadata waxa weeye inaan horumarka iyo horumarinta channel-keenan cusub furnay siina share garay markastana nala garab taagan hiil iyo hoo runtii saaxiibayaal aad baad mahadsantiin baan idin leeyahay idima ilaabi doono abaalka aad gasheen aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh